doonaya amdi leba dadka hagi kari Dr. Cali dadku doonaya amdi leba dadka hagi kari Dr. Cali dadku doonaya magacaygu waa Garaad Axmed Daahir ku nool Gaalkacyo dareenkayga haddaan cabiro iyo aragtidayda musharaxiinta badan ee Puntland u tartamaya keebaa la is oran karaa xilligan waa la dooran karaa iyo maxaa ku dooran karaa Dr. Cali Xaaji Warsame anigu waxaan ku dooran karaa waa nin ka weyn jeebkiisa lagu aamini karo masiirka Puntland u tartamay dawladda Soomaaliya waxqabadkiisana waxaan aragnay xilligu ahaa wasiirka waxbarashada ee Puntland nambarka ardada ah ee xilligaas oo ay isla tartameen madaxweynaha hadda xilka haya madaxweyne Gaas oo xilliga wasiirka u ahaa Cali dawladda shay ma wadato oo maanta Ismaaciil ama wadamada Itoobiya iyo wadamada dariska ah wata waa nin ay wataan shacabka Puntland ka soo dhaxay marka fariin waxaan u dirayaa anigu odayaasha dhaqanka xildhibaanada shacabka Puntland waxay cabiri karaan xildhibaan kasta wuxuu ka yimid reer iyo jifo annaguna matalaya waxaan leenahay xildhibaano annagoo dareenkayga ka turjumay adoo u naxaya dadka Puntland adoo u naxaya maanta xilliga ay marayso Puntland adoo u naxaya gobolada maqan adoo u naxaya amni xumada ka jira maanta Puntland labadii sano ugu dambeysay dawladda Cabdiweli amniga Puntland ku fashilatay ninka is oran karo dadka Soolna oo ka soo jeeda gobolka Mudugna ka soo jeeda Puntland kalena matali kara waa Dr. Cali Xaaji Warsame Bismillahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waa Cabdi Saciid Xasan anoo aqoon-yahanada Puntland ka tirsan waxaan rabaa inaan fikradeyda ku cabiro musharax Cali Xaaji Warsame iyo waxaan ka aaminsanahay musharax Cali Xaaji Warsame waa musharaxa kaliya ee saddex qodob ku guuleysan kara sida aan filayo hadduu qabto xilka madaxtinimada Puntland 2019 saddexda qodob oo kala ah kow gobolada maqan uu soo celin karo labo dadka oo qof iyo cod uu gaarsiin karo sidaan ku haminay kan saddexaad oo daashaday Puntland ayna meesha kaliya oo ay tahay in wax laga qabto waa musuqmaasuq ma la dagay sidaa daraadeed marka waxaan aaminsanahay musharaxa kaliya ee ku guuleysan kara markaan eegay aqoontiisa markaan eegay aqoonta diinada uu leeyahay markaan eegay aqoonta maadada uu leeyahay waxaan aaminsanahay musharaxa kaliya ee ku guuleysan kara ee cirib tari kara musuqmaasuqa inuu yahay farac maanta rag waa waday laakiin rag waa kala waxa doonana Cali Xaaji Warsame xilka waxa ranaan ku guuleysan waa taageersanahay magacaygu waa Farxaan Diraac Jaamac oo ku magac dheer ducaysane waxaan rabaa halkan in aan ka cadeeyo taageerada Cali Xaaji Warsame oo ah musharax han iyo himilo leh rag yaqaana rabbi yaqaana maamul yaqaana ana ku tuhmayo runtii in uu dalkan barwaaqo iyo baraare gaarsiin karo in uu dalkan wax ka bedeli karo in uu dalkan waxyaabaha badan oo baahida oo hadda ka dhex taagan oo asagu xaqabtiri karo waxaan ogeyn wax qabadkiisii hore xilligii uu shirkadaha bareefadka u shaqaynayay iyo xilligii uu ahaa wasiirka waxbarashada Bismillahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waxa leeyahay Maxamed Cabdiqaadir Cusmaan anoo joogo gobolka Mudug ee magaalada Gaalkacyo ku nool waxaan maanta u sheegayaa shacabka Puntland iyo baarlamaanka Puntland one chance oo faa'iido chance ku soo waa laga faa'iideystaa madaxweyne musharax Cali Xaaji Warsame 2019 inaan ka faa'iideysano maadaama wax qabad badan uu soo guushay maadaama shaqada ganacsiga gaar loo leeyahay uu ka soo shaqeeyay man oo ahaan jiray wasiirka waxbarashada ee Puntland Cali Xaaji Warsame maanta waa ninka waddanka soo celin kara 6 xildhibaan waxaan ka codsanayaa inay noo